بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. بهوينتا Soomaaliyeed meel aad joogtaan ba waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bacda salaam, waxaan maanta ka hadlayaa dhowr qodob oo hadda waxyaabihii ugu dambeeyey oo ka socda ama xiisadaha ka taagan waddanka Soomaaliya ku saabsan. Kadibna waxaan ku khatimayaa arrinta badda. kow waxaan ka hadlayaa Baraawe waxaa ka socda arkaya buuq odayaal mudaharaadaya oo ku doodaya waxaan rabnaa wax qayb in Baraawe wax lagu qaybsado iyadoo la isu qaybinayo may iyo maxaa tiri waa hora labadii cerinka ku qaybsataa bisaylka isuguma timaadaa la yiri mar horaa 4.5 loo qaybsaday. maxaa tiri saddex reerood oo waaweyn iyo nuska qayb badan oo kamid ah ku hadla. mayna waxaa ku hadla hal reer 61 kursi iyagaa iskale, cidina lama wadaagto. sida aan kuwiinaba aydinaan iyaga wax uga siin ama ha deganaadeen ama iska daayeen eriyada aad degantihiin baan baydinaa idinkuna wax ugu lahayn qoladiina maxaa tiri goboladiinni aa wax kula haydeen u doonta. waxa kaloo aan aad u mulaaxadeeyey oday waxaa ku jiray leh dalka bible baa lagu xukumaa. odagaas al-shabaab weeye, fikir shabaabiyo qabaa. ninkaa aad ha loogu fiirsado, waa nin al-shabaab ah. intaa markaan ka gudbo, dhinaca galmudug waxaa iga soo gaaraya xogo hoose. waad aragteen baan u malaynaya ogaaskii beesha madhibaan oo u tegey gaalkacyo inuu oo ka mid ah saxiixayaashii 135 ahaa ee Soomaali u saxiixi jiray kursiga. in la isku dayay u tegey gaalkacyo inuu xubintoodii doorashadii xubintooda uu magaranaysaa go'aankeeda gaaro isagii odayaashii la socday oo beeshiisa ahaa. waxaana loo sheegay ama aad arkayseen codkiisa aad ka maqlayseen weerar tiro badan oo ballaaran oo dhanka Bashiir Goobe ka yimi, maadaama Bashiir Goobe kursiga isaga iyo walaalkiisii ay isu dhidhiibayeen aysan ogolayn in lala wadaago. Bashiir Goobe waxaan leeyahay Soomaaliya burburkeeda baad qayb ka noqotay, taariikh madowna waad yeelan doontaa. odayaashana handadaada iyo dilka iyo weerarka aad ku haysid kadaa haddii ay run tahay. ogaasku udu ka eed sheeganaya adiga weeye kadaa. beeshu haddaad muddo u haysay kursiga oo ay ka aamin baxday waxna aysan kaa faa'iidin say sheegeenna hal wiila xataa aadan askari u qorin inay kaa tashadaan xaq bay u leeyihiin oo cid kale ay raadsadaan. isagana intaasaan leeyahay. waxaan qodob ka oranayaa Nairobi ha lagu dabaaldego iyaan la dabaaldegina ha la baqo, labadaba waan maqlayaa. laakiin anigu I don't believe in la baqo. I believe haddii xataa lagu dilayo in lagu dilo adoo gob ah ciise ku dhimanaya iyo sharaf. waxaan kaloo qabaa askar iyo security iyo hub iyo wixii la ogol yahay oo dalku ogol yahay baangaday wataan baa liyay dadka wax weeraraya. dee baangada qaata, gurubna u fariista, is ilaaliya, taxadara, laakiin dabaaldega wayaan laydin baqsan. waxaan kaloo Nairobi ka sheegayaa shirarka ay wadaan Kenyaatiga iyo inta ay wada xulafada yihiin oo ay ka mid yihiin ninka la yiraahdo Macalin Maxamuud oo ninkii Al-Salmaan buubi jiray oo diyaarad Garowe ka soo raacay, diyaaradda Freedom ku yimi. awalna aan idiin sheegay inuu Garowe joogay hotel Martisoor deganaa, haddana Nairobi yimi. iyo Siciid Daniyo isna Dubai ka yimi, xaramkiisii soo xarmaday oo fikirkii ugu dambeeyey ee bin Zaid soo qaaday. Kenyana ugu imaanaya Nairobi. baan iyagana waxaan insha Allahu tacaala ka digayaa ummadda Soomaaliyeed nooga digayaa khiyaano kasta iyo laalaab kasta iyo balood kasta oo Soomaali loo dhigo. Soomaali waa diinkii qolofta alla saaray, ilaahay bay leedahay. wallee waan ka guuleysanaynaa. intaasaan kaga gudbayaa arrinta guud. waxaan usoo daadegaya arrinta badda. xagee ka bilaaba? Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo taallaha la ii dhisa leh. waxaan garan waayey Cabdiraxmaan Cabdishakuur
inuu kharaf yahay oo maskaxda wax ka qabo iyo in uu dadka Soomaaliyeed intelligence-gooda siduu ugu ciyaarayay uu la qabsaday laakiin uusan la socon jawiga isbedelay social media alla soo saaray dadka wadaniga ah ee dhalinyarada ah ee aadka u tira badan ee Twitterkii ka soo cayrsaday inay Facebookana ku jiraan kana hadli karaan arrimahan 5 jeer baanu aragnay iyagoo ka cudur daaranayo ma aanan saxiixin iyo waxba ma saxiixin iyo lacag ma qaadan iyo madaxweynaha dhamaayo leh beel lagu saxiixay ma ogeyn mana ka warhayo khayr iyo khasaare midna wax kuma lihi manin madaxweynaha aba wax wanaagsan oo isagu uu sameeyay ka cararo oo iska bariyeela markii uu ku jiray campaign-kii hore 2016 bari baan ka ahay midda labaad Xasan Sheekh Maxamuud oo iyaga ka dambeeyay madaxweyne uu ahaa markaas xilligaas waxa uu dusha ka saaray eed ah inay badeeni iibsadeen dambay ka qaateen marka Cabdiraxmaan Abshakuur Galaal Allah u naxariistay waxa uu ka wariyay inuu ku yiri waa la igu khasbay raali kama ahayn waxaanu haynaa email uu soo diray oo uu leeyahay iyo xog uu bixiyay oo leeyahay wax aanan garanayn baan saxiixay maanta taalaha la ii dhiso farmaajo asagu taalaha ii dhiso nooc waalida kamid ah psychopath weeye aqliyadii waalida iyo ku dhisnayd Soomaalidu short memory bay leedahay way ilaawaysaa durba waxay ilowdaa umulidihashadeedii gabaygii bacadle raxmatullaahi calayhi ku jirtay ayaan soo xusuustaa markii aan arko dad noocaas waxyaabaha nagu kalifa inaanu arrimahan ka hadalno oo isu soo qaawino oo qof walba waxa uu yahay aan ku sheegno taasaa keenaysa in Soomaalida lagu bartay inay number 1 ilowsha dhow yihiin number 2 waxa la wixii social media la soo geliyay run u qabaan war MOU-gii aad saxiixday wuxuu Soomaaliya geliyay khatar iyo khalkhal badeed kadib markay 50 sanadood xor ahayd aan cidina dood ka qabin dhulkeeda iyo badeeda iyo cirkeeda midna 49 sano bay Soomaaliya xor ahayd 2009 Kenyana 46 sano xor ahayd waligayna heshiisna ma wada saxiixan badna ma aanan ka wada hadlin umana aanan baahnayn inaan ka wada hadlo beenta dadka u sheegteen oo ahayd si aanu xuduudayada maritime-ka u cadaysano waxaanu ku khasbanayn cidii daris nala ah inaanu la galno heshiis horay baanu uga jawaabnay waa fake news been way Kenyana waad u saxiixday Yemenna waad u diideen labadaba daris baana maxaa taasaa ugu diideen tan ugu diidi weyde yaa u sheegaysaan waxa doontaan dadka aqoonta leh oo waxgaradka ah oo dadka waaweyn ah oo anagu aanu ka mid nahay ba adeer idin qabanaysa will take you accountable maalin bay imaan doontaa inay cadaalad hesho dalka Soomaaliyeed iyo badeedu oo nimankii dambiga galay si toos ah oo thorough investigation inta lagu sameeyo investigation dhab ah oo deep ah waxa ay yihiin lagu xukumo saddexdii nin oo MOU-ga saxiixay 4 bay ahaayeen ra'iisul wasaare ku-xigeenkii forgery-ga sameeyay oo isagana aan badanaa magaciisa la sheegin laakiin saldhig u ahaa emailada iyo akhbaarta la isdhaafsanayay Norway iyo Kenya ninka habka u ahaa oo saldhiga waa emailadii aan soo bandhignay oo aan haynay oo hadda documentiga aan hayno aadka u tirada badan yacni 4 nin Soomaaliya dambi bay ka galeen maalinteedana la xukumi doona waxa wali aan ii cadayn wali waxaan ii cadayn oo aan يعني كده بتشرع قاب قيبة كمية دوكومنتو بود ولي لكن وحال أوغاندونا وحان جعلها إن لأوغاندون كين ياد مركا لغا حكومة بدا وأي قول دريستو وحا صورة قال إني سو أو دكا سو قادو حق بدنو أي هايسو وحال أوغاندونا عبد الرحمن عبشكور الله نحرسته قال هذا الكي وكيرو أهوالا يقو خصبي وحال يقول أما الشقادة هذا الدورو وكبح شقادة oo kuwid gare macnaheedu waxay ku tusaysaa inuu sarraali ka ahayn ama saxiix marka waxaan doortay inaan shaqadayda haysto saxiixo doodihii uu meelo badan ka jeediyeen ay ku jirtay warbad ma aanan saxiixin heshiis wada afgaradu ahaayo aanu kaga wada hadlayno inaan ka yani saas oo kale waxaan ognahay oo kale Xasan Sheekh doorashadii 2016ka
in ay Kenya ku khasabtay haddaad rabtid in lagu doorto dhaqaalana lagu siiyo aanna ku taageerno ilaa waxaad si babliga u sheegtaa inaad diyaar u tahay haddaad guulaysatid maxkamadda inaad ka soo celisid kayska maxkamadda gelisteedii MOU-gu negative buu ahaa dhib buu inoo geystay markii dambe maxaa loo isticmaalay dadkaan rabaa inaan fahamsiiyo waxaa loo isticmaalay ka dhegeysan Cabdiraxmaan Abdishakuur iyo Cumar Cabdirashiid midna ka dhegeysan waxaa loo isticmaalay Kenya waxay tiri maxkamaddu jurisdiction laguma leh markii hore oo maxkamadda la geynayena waxay tiri jurisdiction bay nagu macnaha maxkamaddu wayna qabataa oo dadkay xukumi kartaan ka mid nahay markii dambena waxay tiri maya ka mid ma ahin markii hore waxay ku doodaysay MOU baa noo yaalo annaga heshiinayna maxaa idinka galay haddeerna doodeedii ugu dambeysay qodobka 8aad warqadii ay soo saartay 3 cisho ka hor qodobka 8aad ninkii akhriya Cabdiraxmaan Abdishakuur waxa uu sameeyay waa loo jeedaa waana la ogyahay isaga iyo ragiisii waxa ay sameeyeen waxay ahayd badii Soomaaliya u saxiixeen niman oo ay muran geliyeen ayadoo 50 sano xor ahayd ka horna xor ahayd Kenya waligeeyo badna kama wada hadlin iskumana qabsan mana kala saxiixan 2009 baa noogu horeysay Cabdiraxmaan Abdishakuur xageebu ka keenay 18 sano Soomaaliya burbursanayd marka ay Kenya go'aankaas iyo baloodkaas qarxisay nin ay iyadu keensatay oo laga soo dhex qaaday jabhadihii maxkamadda laga soo dhex qaaday oo diyaarad inta helicopter lagu qaaday raggiisii la laayay oo spy ah jaajuus ah 5-star hotel la geeyo Shariif la yiraahdo oo kadibna dawlad xooga loo soo dhisay oo la yiri 275 xildhibaan garabka ku soo qaado turta ku soo dhex darso baarlamaankii markaa jiray 275 ku dhex darso mid la eg saad uga guuleysatay 6 bilood markuu joogay 6 months markuu joogay ayuu saxiixay heshiiskaas Cabdiraxmaan Abdishakuur buu ku inkiray Cabdiraxmaan marar badan buu wuxuu yiri madaxweynuhu waa ogaa wuxuusan ogeyn ma jiraan golaha wasiirada baasiyay isaguna waa ogaa dawladdaas oo dhan waxaanu kaga gaamacnay oo kaga samirnay dhibkii ay noo geysatay waxaanu kaga samirnay ilaahay subxaanahu wa tacaala baarlamaankii xilligaa jiray ammaanteeda ha siiye baanu kaga samirnay oo naga dhaqay oo arrintaa xiray wax kama jiraanna ku tilmaamay Shariifoo difaacaya waad aragteen oo leh dawladdu heshiis waa geli kartaa dawladda heshiis bay gashaa baarlamaankuna waa khaldan yahay heshiisna ma ahayna is afgarad buu ahaa MOU macnihiisu waxa weeye memorandum of understanding waa isfahan labadayada isfahanay MOA na waa la yiraahdaa memorandum of agreement waxbaanu isku fahanay it was a binding markii aynu maxkamadda qaybtii koowaad ku guuleysanaynay it was a binding document oo inaga lidina ku ah markii dambana markay tiri anaga jurisdiction laguma laha oo maxkamaddu naba qabato bay looyaradeen u isticmaaleen shalay baad ku doodaysay MOU baanu kala saxiixanay maanta see baad ugu doodi kartaa yani saas oo kale marka iyadana saasaan ka leeyahay waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa meelay joogaanba inay arrintaa u dabaaldegaan insha Allah tacaala berri guusha marka ay soo yeerto in badda loo dabaaldego baddaani way difaacan tahay madaxweynaha iyo dawladda maamulka hadda haya waxaan kula talinayaa in dabaaldeg heer qaran ah waxay ku aadan tahay by the way maalintii calanka Soomaaliya ku aadan tahay calanka Soomaaliya October 12 way berri maalinta u dabaaldegi jirnay anigu halkaa tafaa'ul baan ka helay wax loola dan lahaa ma aqaan laakiin tafaa'ul baan ka helay maadaama maalin sharaf iyo xurmo leh ay tahay maalin Soomaaliya faraxday maalin ay tahay maadaama ay tahay insha Allah tacaala waa farxaynaa guul baan helaynaa waa guuleysanaynaa tiimka hadda jooga heegna insha Allah tacaala waxaan ugu baaqayaa inay iyaguna dabaaldeg ka abaabulaan meesha ay joogaan iyo heeg in dabaaldeg Soomaalidu ay dabaaldegto meel walba ay joogtana ay ku dabaaldegto farxadana la muujiyo waxaan aad ugu hambalyeeyaa dhalinyarada wadaniga ah ee Twitterka oo runtii nimankii dabadhilifka ahaa iyo nimankii gaalada la shaqaysan jiray meel saaray hadda ka hor baan idiin sheegay iyagaa guuleystay oo kaga adkaaday iyagoo tiro yar oo number iyagoo macnaha dad yar yar ah oo aad u yar yar se aqoonyahan wax gartay oo wax bartay caalamkana la socda kana warhaya geopoliticskana kaba badiya siyaasiga Soomaaliyeed ee danleyda ayay kaga adkaadeen Twitterka si fiican blog saar xagga blog waligaa blog
markii ay gaala maqlaan bay ammaan saa dusha ugala fuuli jireen waxaanu barnay Soomaalida James Swan inuusan cidna xukumin madaxna noo ahayn reeruu matalaa la yiraahdo UN annaga madax baan leenahay dawlad baan leenahay madax waa xor baan oo madax bannaan James Swan baa ugu sareeyay gaalada maalin walbaanu baash garaynaa and nothing happens every day markuu soo qoro wax jawaab baan siiya aniga idin la hadlaya aan leeyahay kakac yaa ku dirsaday orod shaqo yeelo James Swan waa ninkii yaatiya naagtu qaba waa kukuyo marka sharci baa lagu qaataa wad ogtiin qabista iyo guurka laba ilmood bay u dhashay marka waa ninkii yaatiya edo daraa laynoo ku soo diray intaan Kenya haynay baa laynoo soo diray wax walbo laynoo soo diraa Kenya iyo Djibouti bay ka yimaadaan marka in la iska dhicin karo gaaladu waxba ina siiyaan lugaha ka dhunkada nama siiyaan waxba badayday gurtaan waxay iga qaataan bay santiye yar yar oo kamid ah ii soo celiyaan saasaan anigu aaminsanahay anaa idinla jooga ama ku dhaqmay qurbaha iyo North America gaala ku ugu xoog weyn anaa la jooga waxna igama qaadi karaan freedom of speech wax la yiraahdo ilaahay baa Facebook iyo noo soo saaray YouTube iyo Twitter iyo Snapchat iyo magaranaysa social media wax la yiraahdo oo xorka ah magaranaysa dadkii inkastoo hadda ay ku bilaabatay oo nagu bilaabeen inayna daba naxakiyaan oo ay cagaha nahayaan oo ayna lugooyaan laakiin dalkan difaaciisa baanu u helnay insha Allah ta'ala tool waxyaabaha ay u kalifay inaan wadaadadayda iskaga dhex jiro oo sidaydaas maaragtay aan iska aamusnaado oo hoos bay ka mid tahay inaan ka dhex baxo bay ka mid tahay inaan arkayo inay guuli halkaa ku jirto inaan arkayo inay muhiim tahay ilaa in cidi hadasho consequencesna la face gareeyo ama cawaaqib iyo dhibaato ka imaan kartana shafka loo dhigto diyaar anaga waa dalka difaaciisa insha Allah ta'ala dhalinyaraanu soo saaraynaa aragtidaas hufan oo qabiilka ka hufan qarannimada huwan Soomaalinimada huwan qabka iyo ku dhisan iyo kalsoonida aan baqdinta lahayn cidna aan ka baqayn mawjeeda every day baan madaxweynaha Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka intay Soomaaliya ka hadlaan madayno baanu intaan u jawaabno dhagaha kaga garaacnaan raana back off nooga baxa faragelinta nagala baxa waddankayaga noo daaya mawjeeda and that's what it is waxa xaq u leedahay lugaha ka dhunkatid wuxuu igula dareerayay kii wadaadka oo igu maagay gaalada aad dhex joogtido caruurtaada ku haysaad wax ka sheegaysaa adeer anagoo dhex joognaa wax ka sheegaynaa halkaana wax kaga sheegnaa kuwa jooga u sarreeya prime ministerkaan wax ka sheegnaa madaxweynaha Mareykankaan wax ka sheegnaa deerana deero uma hardido fulaynimada iyo dabadhilifnimada qalbada idinka gashay nagu xor baan ka nahay maalin baan dhimanaynaa imisaan noolaa anu 50 baan dhaaf haddaan dhinto maxaan ka waayay inaan sharaf ku dhinto maxaan ka waayay ma arkaysa aan qabyaalad ku dhisnayn aan qowmiyad qoqob iyo maamul goboleed iyo tuulo iyo calal yarahoo gaarahoo la sameeyay aan ku dhisnayn calankaas kaa ku dhisan kaa Soomaaliyeed ku dhisan qab leh xornimo leh si magaranaysaa hufan oo gobonnimo leh u hadli kara beenta kuwa la wareegaya dad baa hadda waxa hebel ma dabaaldegi karo campaign kama dhigan karo mid waxaan arkay miskiin oo hadda ka hor aan idiin sheego maskaxda dhimirka wax ka qabaho farmaajo lagu sixiray markuu maqlo farmaajo qarastaa ku kacaysa farmaajo kuma dabaaldegi karo kuwa kaluu leeyahay ku dabaaldegeen oo campaign ha ka dhigteen farmaajo 4 sanadood iyo 8 bilood ayuu sutiga u daruuray this is the fact aniga I can say the facts because I say it wherever it is meeshii facts ku ka jiraan sheega I don't care cidda ay la jirto dhabtu laakiin dhabtaan sheega farmaajo 4 sano iyo 8 bilood ayaa dawladdiisii dhinac kasta laga soo galay oo si kasta loo burburiyay daakhil iyo dibadba weerar lagaga soo qaaday Kenya iyo wadamo ay kaalmaysanayso aad u tiro badan oo Ingiriisku ugu xoog badan yahay intaas oo jeer buu wuxuu wajahay caqabad aad isleedahay maanta ugu dambaysa kulligood wuxuu kaga baxay alle subxaanahu wa ta'ala kaalmadiisa ayuu kaga baxay iyo adkaysi summa adkaysi intaa kadib alle kaalmadiisa kadib adkaysi uu adkaystay raganimada iyo geesinimada waxa la yiri waa daqiiqado aad lugaha dhulka ku sii haysi that's what it is marka adkaysi buu kaga baxay laakiin dawladdiisa la burburiyay oo intaas oo daba dhilif baa xamar dhex joogay oo intaa caytamaya oo kuwii badda shalay ku caayo lahaa baddi waxba lagama qaban Kenya maxaa loola dirirayaa
دقيقة كينيا وحكشيجان عبد الرحمن شكوري حسن شيخ وايغا فربح سنة هل دقيقة وحكشيجان دول كي بنوها يستا إركي يبدي بنوها يستا ما قريس دت كي يجي بالليل يساي 1 minute وحكشيجان هذا يسند بدل فهين فرنا عن لجاهين تعدي وين عبد الرحمن شكور فرماجو أو فربح صدا ما له البوح كشيجان سي حسن شيخ أو كره يعني الصباح والباء وكسر توسانه وكسر إحدانا بينكي دقيقة وحكشيجان كينيا 1 minute وحكشيجان كرتان waxay tusaysaa compromise inay yihiin faraha laga hayaa ma hadli karaan juuq haduu yiraahdo saasa loo soo saaraya ceebiis ma arkaysa kuma dhacaan marka nin ceebaysan oo aanu naqaano taariikhdiisa madow aanu hayno annaga waxba ka dhageysan mayno dadka shacabka oo masaakiinta oo ku jira Facebook waxaan leeyahay war waxaas ha ku khaldaminina inaad toltihiin baa laga yaabaa laakiin isku qalbi ma hidin adiguna Soomaali baa tahay iyaguna dad kale u raran yihiin ha ku khaldaminina dadkaas dad kale u raran yihiin bal ar waxa laga baqayaa Jubbaland baa digniin loo diray iyo Puntland yaan la dabaaldegin iyo Somaliland marka ma Soomaali baa dadka meelaha horjoogayaasha ka ah haday Soomaali ma isku Soomaali baa waxa laga yaabaa isku qabiil tihiin isku reerana laakiin isku qaran manin isku qadiyadna ma qabna naga dhaxeeyo Jubbaland waxay ka baqayaan Soomaaliya joogtay haday dabaaldegaan oo badda u dabaaldegaan in Axmed Madoobe ciidamadiisu laayaan kuwa Puntland jooga waxay ka baqayaan Siciidani inuu laayo kuwa Somaliland jooga waxay ka baqayaan Musabbix inuu laayo kuwa magaraysa meelaha kale jooga waxay run u qabaan Cabdiraxmaan Shakuur iyo Shariif iyo Umar Cabdirashiid iyo magaraysa Xasan Sheekh iyo dadkaas waxay u qabaan inay dad ay isku Soomaali yihiin maya dadkaas oo dhammi dad kale u raran yihiin waa la isbartay nin kasta oo nin kale ka soo dabqaata bal u fiirsada wax yar oo heshiis markay dhacaan Dani iyo Axmed Madoobe waa inay isku sii daayaan Kenya iyo Imaaraadka ma Kenya Imaaraadka la ku xukumaa oo idin doortay ma iyaga u shaqeysaan mise Soomaali baa u shaqeysaa yaa Ilaahay yaqaan hal mar waxaad aragtaan nimankaas meelahaas qaylada la taagan oo qaran dumiska kuwii awrta qalanayo dawladda Soomaaliya rabay inay dumiyaan hal mar iyagoo dal ajnabi wax ka sheegaya arka cadow dibadda ma lihim miya waxay u farabaxsadaan Ethiopia oo hadda ammaan siisay oo 5 sanadood aan arag buuqeedii qayladeed maanta Baydhabo iyo Kismaayo iyo Muqdisho iyo galmudug waxa ka socon lahaa dagaal Ethiopian hadii Ethiopiankii hore u joogi lahaa ay wadaan oo ay nagu leynayaan baa ka socon Ilaahay baa dhinac naga mari subhanahu wa ta'ala ayay u farabaxsadaan olka aan leenahay oo Kenya Djibouti waa loo wada dabaaldegaya kulligood waa loo hambalyeynaya Ismaaciil Umar Geela loo hambalyeynaya dhowr boqol oo kun oo Soomaaliya madax kaga taagay xoog ku haysta Soomaaliyana isagay ka dagilaaday wuxuu arkaa tareed Soomaaliya oo degtay oo dawlad noqotay wuxuu arkaa caqabad inay ku tahay dadkaasi Soomaali ma wax daran bay aaminsan yihiin yaan la idin khaldin shacab weynaha Soomaaliyeed oo ku jira Facebookyada kuwa ay taaj xoogaa ugu diraan oo qaylqaylinayo iyaga bumbuuninaya warkooda ha maqlinina Soomaalinimada ka muhiimsan looma baahna dhaqaale iyo lacag waxa loo baahan yahay dal iyo qarannimo ha kullu go'in qofka maamul goboleedka aaminsan oo qabyaaladiistaha ah waxaan ku metelay Soomaaliya oo hal qof ah uu leeyahay gacantaas ma aragtaa lama taaban karo gacantan yaan la taaban Puntland baa la duminayaa Jubbaland baa loo socdaa Somaliland baa qarannimadeeda duulaan lagu yahay war madaxa ka waran iga gooye caloosh ka waran waxa artaan ku sameeyo lugaha ka waran qaata gacanta kale ka waran dan kamali xabadaas gacantaas aan ilaalinay aqli xumada inta la eg yaa la rabaa in la idinku qanciyo dhalinyaro waxa jirta aan dawladnimo arag oo Soomaaliya aan soo marin anu dawlad ku korbaana iskuulka maalin baa hooyada ku geynaysa register baa lagu qorayaa maalintaas hooyada u dambaysa inay iskuulka timaado hadii loo baahdo ay dhibi dhaco aad khalad sameeysid oo la yiraahdo waalidka keen waa dhici kartaa laakiin hadaa baastid registerka birimo ba haduu ahaa sugunta ba baa laga dhigaya teersa ba baa laga dhigaya saasa u soconaysa registerka marka intii baastay baa hadana la soo gudbinaya hadana la soo gudbin financial aid baadan buuxinayn foomamkan tirada badan oo sanad walba la buuxiyo jaamacadaha kolleejooyinkaadan buuxinayn cid ku daba socotaadan arkayn hadaa xataa high school dhigatid foom baa la buuxiyaa fee baa la bixi waxba shilin laga ma rabo $1 isbitaal hadaa timaado adoo lugta dhigkaada iyo banooni soo ciyaaray aaway kaarkaaga caafimaadka aaway ma garanaysaa ID-gaagi ma jirto waa lagu daaweyn wiilka daaweey waa lagu fariisinaya waa lagu daaweyn
يعني إلى هير jaamacadeed free baa ku dhiganaysa daawadiina waa free adduunka hadda aan joogno wadamada ugu heerka sarreeya ama caafimaadka meelaha qaarkood free ah ama waxbarashada free ah iyadoo waliba xadidan oo dadka faqriga ah kaliya loo ogol yahay Mareykan iyo Canada waa wadamada ugu horumarsan labadaas shay oo aan sheegay midkoodna free ma dadka cayrta oo masaakiinta baa wax looga ogol yahay ma ujeeda dawladnimaan ku soo koray iyadaan wax ku soo bartay xaq bay igu leedahay dawladnimadaasaan raadinaynaa gacan kaliya difaaci maayo jirkoo dhan baan difaacaya hal gacanihi aniga maxay i taraysaa ama madaxa kaliya muxuu i tarayaa haddii jirka intiisa kale la iga goosto ma noolaan karaa madaxu haddii jirka intiisa kale la goosto waxaa laydinku khaldaa reer Puntland baan qodobkan kala hadlaya Siciidani Dubai buu ka yimi Nairobi buu joogaa wuxuu hadda ka shaqeynayaa qaska laga wado galmudug buu ka shaqeynayaa waxaan idinka digayaa inaydinaan ku khaldamin dad khaldan oo khariban oo dad kale u daneeyo u shaqeeya inaydinaan ku khaldamin oo aan qabyaalad iyo maskaxda laydinkaga afuufin oo Puntland baa la burburinaya Puntland baa lagu socdaa Puntland iyadaa burburinaysa waxa kale oo laydinka dhaadhiciyay oo been ah hooyada federaalka waa been federaalku 5 qodob buu u ogol yahay inay dawladda dhexe maamusho min hal mid oo kamid ah Puntland uma ogola federaalnimo maxay federaal ku tahay marka ma afkay ka tahay beentaas dadka lagu waalay inaanu dabada u gadino baanu u joognaa Facebook iyo social media YouTube waa fake news federaal ma ogola iyadaan ogolayn federaal garowaana lagu dhisay federalismka oo dastuurkan qabyo qaraar lagu qoray garow accord 1 iyo 2 ciidamadaysan u ogolayn inay Soomaaliya maamusho lacagta iyo dhaqaalahaysan u ogolayn kaabayaasha dhaqaalaha iyo meelaha port of entry la sida dekedaha iyo airportada inay ku wareejisaysan ogolayn waxaysan ogolayn arrimaha dibadda inay faraha uga qaado waa Kenya iyo Imaaraadka la xaajaysanaya oo ku dhex jiro laga saari laayahay cid alla cidii mucaarad Soomaaliya ku abuula shareeya ma ujeeda waxa laga aan loo ogolayn xuduudaha inay iyadu ilaaliso dawladda Soomaaliyeed ma ujeeda waxaas oo dhan looma ogola waxa lagu leeyahay federaal maxaa ku tahay ma magac baa ku tahay iyo been yaan la idin khaldin dhalinyaradu way kaceen hurdadii bay ka kaceen dalkana iyagaa iska leh xilligoodii baa la joogaa nin tuug ah oo soo shaqo tagay waqtigiisii waa dhammaaday waa qorax sii dhacaysa siyaasi danaysan waa qorax sii dhacaysa siyaasi dalka u shaqaynayana waa qorax soo baxaysa insha Allah waa guuleysanaynaa halla adkaysto waa iyaamo oo lugaha dhulka lagu sii hayo halla adkaysto wadaniyada iyo qarannimaduna Soomaalinimadu iimaankay ka mid tahay islaamnimada qofku inuu dalkiisa jeclaado Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markii laga saaray Makka dib uu sii eegay isagoo boholyow iyo daltabyo ay hayso ayuu sidaa u sii eegay Makka waa layga ka saaray wallaana ka bixin buu sallallahu alayhi wa sallam markastoo xadiiska akhriyo waxa ay u kacdaa hadeer waad u jeedaan xaadayda istaagaysa yani wadaniyada iyo dal jacaylka ayay ka mid ahayd Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam aqeedadiisa iyo diintiisa dadkii Soomaaliyeed degaan iyagu ay leeyihiin in laga tarxiilay maraysa waxay maraysaa inay qaxooti ku yihiin oo la yiraahdo IDP internally displaced people ma aha qaxooti qof Soomaaliya hadduu dhuuso mareeb ka qaxo oo gaajo ama fakhri ama dagaal ama wax uga qaxo haddii uu baladweyne tago gurigiisiiba joogaa hadduu Garowe tago gurigiisiiba joogaa Hargeysa hadduu tago gurigiisiiba joogaa in laga sheegtana maaha saxna maaha meeshuu doono Soomaaliya buu qofku degi karaa wax ka dooran karaa laguna dooran karaa waxayna ka hortaagan 2,000 nin oo elite ah oo ka shaqeysta siyaasadda inaynu fahanaa loo baahan yahay inaynu fahanno ayaa loo baahan yahay intaasaan maanta ku soo koobaya insha Allah wacyigelintayda khayr badan baa idin rajaynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh